13 Sebteembar waa maalinta shacabka dalkani Norway ee dooran doonaan golaha xildhibaanada baarlamaanka cusub ee uu yeelanayo, waxaana ku tartami doona xisbiyo badan oo ka dhisan Norway. Shacabka ayaana soo dooran doona xildhibaanada bedeli doona kuwa iminka xilkoodii 4 sano soo dhammaystay. Olole ballaaran oo ay ku soo jireen xisbiyada waaweyn ee ka dhisan dalkani ayaa xisbi kasta aragtidiisa uu ku maamuli doona 4 sano ee soo socota uu u soo bandhigay shacabka sidii uu uga heli lahaa codadka ugu badan ee xildhibaanada baarlamaanka. Xisbiyada ugu tunka weyn ee ku tartami doona ayaa kala ah midigta fog oo isku dhari ah iyo bidixda oo dhinac ah. Xisbiga midigta oo hadda ka sii degaya xukunka isla markaana 4 sano ee la soo dhaafay dalkani soo maamulaya ayaa mar kale hamigoodu yahay inay guuleystaan, halka xisbiyada bidix oo iyagana isku sundan rajo wanaagsan ka qabaan sidii ay 4 sano ee soo socota u noqon lahaayeen kuwa maamuli doona waddankani Norway. Xildhibaanada doonaya in la soo doorto ee ku jira xisbiyada ka dhisan dalka Norway waxaa ku jira Soomaali haysata dhalashada Norwejiyaanka. Shacabka ayaa bilaabay inay ka codeeyaan goobaha loogu talagalay in lagu codeeyo oo shaqadoodii bilaabatay. Soomaalida ku nool magaalada Bergen oo aan wax ka weydiiyay siday ula socdaan sheekada ku saabsan doorashada baarlamaanka Norway ee ka dhici doonta 13 Sebteembar, cidda ay jeclaan lahaayeen inay ku soo baxaan si ay u maamulaan 4 sano ee soo socota. Rajada lagu qabi karo ballanqaadyada xisbiyada iyo Soomaalida u sharaxan baarlamaanka haddii ay helaan oo ay ku soo baxaan danta ugu jiri karta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka dhisan guud ahaan dalka Norway ayaan la dhex qaaday muuqaal baahiyaha telefishinka SDN TV. dalka doorasho aaday maalmahan oo dhan wax lagu mashquulsanaa waa doorashadaas waxayna ku egtahay 13 Sebteembar. ilaahay mahadiis waxaan ku jiraa dadka hormarsaday oo codeeyay, marka waxaan kula talin lahaa Soomaalida kale oo magaalada nala degan inay sidoo kale ayagana ay codkooda ee maanta waxa ay ku cilbaxaan oo ay codeeyaan. la soconaa doorasho waxa dhacaysa aad iyo aad muhiim u ah doorashadii Sturtinga amba baarlamaanka dalka Norway. doorashadani waxay go'aamin doontaa 4 sano soo socda cidii dalka hogaamin lahayd. runaantii wax badan baan kala soconaa inkastoo karoonuhu xoogay uu xadidaad sameeyo magaranaysa sidii sanadadii hore aan ahayn, haddana hawshu way socotaayo doorashada magaranaysa campaign-ku uu socdaa, xataa codayntu way socotaayo. sidaan wada ognahay Norway muddo ka hor baa la bilaabaa maaragtay doorashada, oo wax weeye qofku hadduu mashquulayo iyo haddii magaranaysa uu shaqaynayo haddii si kastaba maaragtay dadku waa loo fududeeyey oo hadda meel walba waa laga codayn karaa. halkan markay naga dambaysa iyo meelo badan oo magaalada dhexdeeda magaalo kastana waa sidaa. doorashada 2021 waxay ugu duwan tahay doorashooyinka hore anigu maleynayo. waxay ugu duwan tahay 8 sano u dambeysay waxaa waddanka xukumayay xisbiyada midigta fog oo saas daraadeedna waxaa waaye isbedel badan ay yimid markay ka qabsadeen oo kamid tahay sharciyaasha la adkeeyay ee kamid tahay Soomaaliga oo la adkeeyay. dadka sharciyaasha waa loo dhibayaa, saas daraadeed ani ahaanteed waxay la tahay dadkii inay ka daaleen sharciyadan adag oo ay rabaan isbedel inuu dhaco sanadkan. yaad jeclaan lahayd runtii waxaan jeclaan lahaa isbedel inuu dhaco. waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay xisbiyada maaragtay bidixdu ay soo baxaan oo run ahaantii inagu in badan dadka minority-ga amba Soomaalidu ay u badan yihiin. marka Soomaalida maaragtay walaalaheena Norway degan wacyigelintaada waxaan uga faa'iideysanayaa inay run ahaantii ay eegaan xisbiyada dalka maaragtay ka tartamaya, xisbiga dantu ugu jirtana ay maaragtay codkooda siiyaan. run ahaantii waa muhiim inuu qof kasta codeeyo oo maaragtay waa xaq dastuuriya inaad adigu wax doorato, adiga laftaadana lagu doorto. waxay ka mid tahay waajibkaaga maaragtay dalku kugu xaq leeyahay. marka run ahaantii dadka waxaan kula talin lahaa inay codeeyaan sanadkan xisbiga SV-ga la yiraahdo oo run ahaantii dana badan oo in leenahay ka dhex muuqdaan, hadday noqoto Soogolootiga iyo hadday noqoto arrimaha familka iyo dhan kasta noqotaba. run ahaantii xisbigaas waa xisbiga ugu cadcad ee mar walba u dooda dadka maaragtay laga tirada badan yahay. ta kalena hadday nahay Soomaali waa xisbigii ugu horeeyay taariikhda Norway ee Soomaalida ka soo bixi doonto Oslo oo run ahaantii ay ku biiri doonto iyadoo xijaaban magaranaysa Sturtingaha. waxa weeye arrintaasuna waxay qori doontaa taariikh inaga maaragtay sumcadeena kor u qaada. xisbi walbo ballanqaadyo oo wuxuu leeyahay gooni u ah, qaarna way suurto galaan qaarna ma suurto galaan. waa sida caadiga ee xisbi walbo oo adduunyada ka jiro
laakiin aniga ahaan xisbiga aan u codeeyey ballanqaadyadiisii waxaa laga yaabaa in ay qayb ka mid ay suurto gasho waana ogahay qaybo badan oo xisbiga oo ay sheegaan laakiin ballanqaadyada horta xisbiyada kooda hore waa inaa ogaanaa waxaan waa siyaasad haddii xisbiga uu ballan qaaday intaas 10 ballan uu qaado waxaa laga yaabaa waxa suurtagal ah in 5 uu ansixiyo 5 kalena uu ansixin waayo sababtoo wadankan waa wadan oo dimuqraadi waa wadan oo hal xisbi kaliya xukuma kiiraay hataa waa kuwa kale ku xiran yahay marka laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaalo badan ee ballan qaadeen oo 8 sano dadka hadda oo sharciyaashii wixii loo adkeeyay inay fududeen doonaan rajo weyn aan ku qabnaa والله waxaan ka qabnaa inta badan xisbiyadan wadankan joognaa uu ka duwan yahay inaga halkii aan ka nimi iyo wadamada Afrika qaarkood oo runtii inta siyaasiyiintu wax ballan qaadaan ka baxaan laakiin se xisbigan nimanka waxyaabahan ay dhageysanayna haddana xisbiyadu qaban runtii doorasho ma dhamaanayso oo wax weey wala isku soo laabanaya haddana muddo kadib marka rajo badan baan ka qabaa in maaragtay ay fulin doonaan oo run ahaantii maaragtay inaguna waliba baahi badan baynu qabnaa inuu isbedel dhaco isbedelkaas oo runtii dhinacyo badan naga taabanayo wadankii dadkeenu wadankii u soo guuray baan nahay waxyaalo badan oo caqabad iska jira cadaadisyo soo maray baa jiro xisbiyada qaar inooga yimi marka rajada ka qabnaa aad iyo aad bay u weyn tahay dan ka weyn ma jirto maanta haddii ay gabar Soomaaliyeed ay sharaxan tahay oo ay u sharaxan tahay xildhibaanada soo socda ee Norway maadaama wadanku uu yahay gobol oo gobol walba oo waxa waay ayaga codeyntiisa gooni u tahay waxa waay gobolka ay ka tirsan tahay waxaan rajaynayaa in ay garab istaagaan gabadhaas qiimaha leh oo maanta tartanka ku jirto waxaan u rajaynayaa nasiib wanaagsan si magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway ay kor ugu qaado haddii qof Soomaali soo galo doorashada hadda xildhibaanka waxa aaminsanahay in qof ahaan kali inay qofka si kaliya ku ekaaneen laakiin Soomaali ahaan hadda in oo meel dheer ka gaareyno dhinaca oo siyaasadda mid kale Soomaalidan waxaan oo la yaqaanaa wadankan waliba siyaasadda door weyn ka leheen marka taas micnaheedu waxa waa qof Soomaali intuu soo galo taariikhda Soomaalidan oo lagu qorayaa qof Soomaali soo gala taas fikirkii naga leeyahay Soomaali ahaan wuu bedelmayaa insha Allah waxaan rajaynayaa intaas kaliya inay ku ekaanin oo doorka siyaasadda inuu sii bilaarmo oo sii socdo sidii golaha deegaanka ma aha oo ay soo baxayaan xildhibaano badan horta waxaan rajaynayaa insha Allah taala inanta Maryan inay soo baxdo oo isla ka sharaxan haday soo baxdana kulli qofka Soomaaliga iyo qofka Afrikaanka iyo qofka Ajnabiga mar walba wuxuu ku shaqeynayaa siyaasadda xisbiga marka waxaan rajaynaynaa xisbiga iyo xisbigaas marka siyaasaddu lahayd ajanduhu lahaa in dufuli doono iyaduna waa inaga waxay nooga sii xaq jira qofka Soomaaliga waa qof adigii ku metelaya oo sumcadaadii iyo magaranaysa baahiyahaagii kala dawliga wixii aad uga baahato wax kala qabanaya marka rajo badan baan ka qabnaa horta Maryan inay sanadka maanta ay Stuttgart tagto waa inaan Soomaaliyeed runtii ma aqaan laakiin waxaan ka arkaa magaranaysa campaign-ka siyaasadda iyo magaranaysa baraha bulshada oo xisbiyadu ay ka ololeynayaan marka reer Oslo aad iyo aad baan ugu boorinaynaa codeeyaan xisbiganna waxaan aad iyo aad ugu soo celceliyay SFA-ga runtii listooyinkiisa xitaa halkan magaalada Bergen nin Afrikaana kaalinta lambarka 3 ku jira waana xisbi mar walba wado qof kasto dhibaato ka soo gaadha xagga sharciyada iyo magaranaysa shuruucda xagga arrimaha family iyo carruurtana wax xisbi aad iyo aad maartay mar walba xagga arrimaha bulshadana ku wanaagsan marka rajo weyn baan ka qabnaa bilowga inay isbedel dhici doono xisbiyada bidixda inay guuleysan doonaan sanadkan maanta